السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا خيارته شلنكين واحد بكريبتو ولكن محمد جامع إن شاء الله وحرجينا كل جين إن العرف مرقبتان وحدوني إن شاء الله تعالى مانتا إن أبديت الرنجسيو قابك سوق وصعده وحيابها لقفل كرا إن شاء الله يوركي وجودن بيه وطن كمريكا كصبحة سامين توين سوق كويا شيء لابد يعيش وجودن بيسي يقرأ لهذا مقالك وحول غندونا مد بلا برودكشنه وإن شاء الله xogtii oo dhan aad ka heshaan hadday tahay update-kii chartka iyo warka ka soo baxay Mareykanka haddaad nagu cusub tahayna waxaan kaa codsanayaa inaad channelka aad ku soo biirtid subscribe iyo like inaad noo saartid insha Allah tacaala fiidiyoda channelka ku jirana insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysid arrinta kale aan doonaya inii sheegana waxa weeye abaalmarin baan insha Allah tacaala dhawaan aan samayn doonaa taasoo siyaabo kala duwan aan u wasici doono giveaway-ga amba abaalmarista dhowr fikradooda saraxatan madaxayga ku jira taasoo ka mid yihiin qaabkan u bixinayo giveaway-ga hadday tahay maaragtay كورسيغا او فريغا نوغا ديغو ان شاء الله تعالى خيارته كومنت سيكشن كمارتي ku qorta comment-yada la socota channelka aba qaabka kale oo ah lacag insha Allah taala kaliya waxa laga baahay inaad asxaabta la share gareysid fiidiyoyada channelka hada jeceshahay mustaqbalkana inaan waxyaabo adeynaysid ka hadla insha Allah taala comment section ka igu soo qora waxba intro-ga yaraan ku dheeraan ku soo dhawaada warka Mareykanka ka soo baxay hadaynu eegno horto maalintii Jimcaha ayuu soo baxay Jerome Powell soo taqaanaan waxa weeye madaxa banka dhexe Mareykanka asaga iyo majmuucad kamida banka dhexe journalists far badan iyo dad maaragtay iqtisaadka khibrad ku leh ayaa isu tagay waxaana isku tageen meesha la yiraahdo Jackson Hole halkaas ay ku shirayeen ay ka hadlayeen sicir bararka waalan ee Mareykanka ka jira ee qaabka wax kameyn lahaayeen sa halka maqaalkan aan ku aragno waxay doonayaan goolka amba inflationku inuu ku soo laabto 2% ee caadiga ahayd amba sicir bararku inuu 2% ee sanad walba mar laga sugi jiray maaragtay inuu noqdo inay soo dajiyaan oo 2% maaragtay ku soo celiyaan imaka sicir bararka Mareykanka ka jira wuxuu marayaa 8.5% taasoo afartankii sanadood ugu dambeysay waa meeshii ugu sareysay uu gaadhay inkastoo bishii hore uu soo yara daatay oo June meelaha uu ahaa 9.1 marka shirkan saraxatan saameyn weyn buu ku yeeshay suuqa taasoo qodobada ka hadleen ay ahayd oo ay ragga maaragtay shiray ictiraafeen in maaragtay wadanka Mareykanka amba iqtisaadka wadanka Mareykanka uu meel xasaasi u marayo meel khatara oo ay tahay in xakameeyaan si ay sicir bararka u soo dajiyaan oo halka dadkii maaragtay ay ka baxaan مشاكلka haysta hadaba qodobada ugu muhiimsan amba key takeaways-ka aynu eegaynaa goolku waxa weeye 2% in lagu soo celiyo sicir bararka sidaan sheegay imika wuxuu marayaa 8.5 Jerome Powell wuxuu ka hadlay oo kale inay tahay daruuri in sicirka faa'iidada ah la kiciyo taasoo laga yaabaa sanad soo socda ilaa sanadka dhamaadkiisa ay gaadho 4% ilaa 5% laano mar walba uu sicir bararku uu kaco waa in interest rate-ka amba lacagta maaragtay suuqa taala waa in la xakameeyo taasoo lagu xakameeyo qaabka ah in interest rate-ka la kiciyo marka hadaynu warkii ku sii socono halkan wuxuu ku sheegay inay arintaasi u xumaan doonto dadka danyarta ah iyo businessyada wadanka Mareykanka ka jira taasina dabcan waxa soo dhaxgalaya stock market-kii iyo crypto-dii iyo wax walba maaragtay caalamka Mareykanka la xiriir leh oo la shaqeeya marka insha Allah tacaala marka bilaha soo socda ilaa sanadaha soo socda arintu saraxatan aad iyo aad buu xumaanaysaa gaar ahaan hadday tahay markaynu ka hadlayno cryptocurrency iyo warkani siduu muhiim u yahay maaragtay inaynu si wacan aynu u eegno oo portfolio-heena iyo waxaynu iibsanayno maaragtay aynu xakamayno oo halkaa laga yaabaa inay bitcoin-ku iyo altcoins-kuba ay soo daataan تحديش البيتكوين هذا يرد له إن شاء الله تعالى وحنا أركينا إلا نوفمبر 2021 إنه هو صدع وكشري بيتكوين كو سهل كان قارنه دو شير وحسكو دي إنه صورة تسكريو أم بينو دافو موفينج أفريج كلا بضع بقول عشرة لبضع بقول عشرة وحلوقة شيء لبضع بقول كاندل ديلي جاها مركل الأسبوع العليو أفريج هان برايس كا meeshu ku beegan yahay taana waxaanu aragnaa in dhowr jeer la soo register gareeyay oo kolba hoos loo soo diray qaabka ku socda bitcoin-kuna waxa weeye impulsive correction mar walba marka la soo daadiyo waa la soo yara celiyaa waa la soo daadiyaa waa la soo yara celiyaa waa la soo daadiyaa haddana waa la soo yara celiyaa imaka xitaa wiigagii u dhaweyd ee ugu dambeysay waa la soo daadiyay waa la soo yara celiyay imaka waxaad moodaa in la soo daadinayo oo la soo celinayana maadaama iqtisaadka Mareykanka uu sidaa u xun yahay oo interest rate-ka la doonayo in la kiciyo kolba maadaama sicir bararka aan la xakameyn karin iqtisaadka caalamkana imaka warwar iyo cabsi ayaa ka jira taasoo imaka Chinaha xitaa asmadi ay waajahayso oo laga baqayba maaragtay asmada Chinaha ka jirta inay caalamka oo dhan ay saameyso already nadameyno aragnaa in caalamkii iyo iqtisaadkoodii wax walba maartay ay xun yihiin muuqaalna insha Allah tacaala waa ka soo sameynaya asmada Chinaha ka jirta sababaha ka dambeeya inay heerka ay gaadhaan iqtisaadkooda maartay xumeeyay laakiin imika sidaynu aragno bitcoin-ka
maadaama uu yahay cryptocurrency ugu muhiimsan ee mar walba maaragtay la taxliiliyo ee la eego eriyooyinka laga filan karo insha Allah tacaala inuu soo taabto amba inuu yimaado. horta waxa muhiim ah inaan area 17,500 inaan la jabin. marka dhinaca kale laga eegana waxa weeye area quarter zone amba number psychology oo adag ay ku dhex jiraan. haddii la soo dhaafo areadana $15,000 areadaas laga sugi karaa insha Allah tacaala. haddii la jabiyana waxa ku xiga areada 12,500. ugu dambeyntii oo isleeyahay waa areada ugu quruxda badan amba areada ugu wanaagsan ee bitcoin ka soo laaban karana waxa weeye $10,000. طبعا imka dad fara badan bay isweydiinaya oo leh millionaires baa jira kana jira kaasa jira ma macquul ba inay iibiyaan ma macquul ba inay iska iibiyaan. waxaasoo dhan saraxatan iqtisaadka ayaa ka weyn iyo federal banku wuxuu doonayo inuu sameeyo ama arrimaha uu doonayo inuu fuliyo. marka insha Allah laga taxadiro suuqa. ayaantii dhaweyd chart baan soo dhigay oo ah in laga faa'iido dhaqaaqa yara soo dhacay iyo retracement ka yar kadibna rejection baa dhacay oo warkiina wuu saameeyay. marka waa soo daatay suuqu ala ay taxal alxamdulillah waa laga istifiiday. akhyaarta intii ka istifiidayna waxa oran lahaa hambalyo. haddaba asmada nagu soo socota iyo qaabka looga faa'iideysan karana insha Allah waxaan doonayaa taana inaan video gaar ah ka soo sameeyo. akhyaarta maanta intaas ay nihayay khair badan bay ni rajaynaya insha Allah tacaala. wixii update wixii jiray isbedelana insha Allah way nala socodsiin doonaa insha Allah.